bismillaahi araxmaani araxiim waa mar kale iyo barnaamijkeenii run iyo rajo oo aanu kaga hadli doono ciidamadii maantay gudaha u galay guriga senator cabdi xasan cawaale qaybdiid iyo taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed generaal Gorod oo isaguna yiri arrintaa waa qalad iyo gaf weyn sida lagu soo waramayo waxaa la xirxiray ilaa 40 isugu jira saraakiil xigeenno iyo dabley. haddaba waxaa muhiim ah in aynu ogaano bal maxay tahay arrimahan soo noqnoqonaya, maxay uga hadli laayihiin mas'uuliyiinta ugu sarreysa dowladda. bal aanu dheehano oo aan daawano labada muuqaal ee mas'uuliyiinta cabdi qaybdiid iyo generaal ayaa loo soo galay. markii loo soo galayna waxaa gurigii baa loo galay gudaha, waa la baaray, waa la jebiyey dhammaan albaabada, meel walbana way galeen, armaajooyinkiina way soo daadiyeen wixii ku jiray, qolalkii guriga dibadda bannaanka qolalkii dibadda iyo qolalkii gudaha dadkii ku jiray oo dhanna way hansaab gareeyeen. taleefanadii bay xaaskaygii iyo gabadhaydii ka aruursadeen. xaaskii oo masqusha ku jirtana masqushay ku jebiyeen oo ugu galeen ciidankaasi. baaris kadib hadda intaasi markay dhacday anigoo maaragtay ma garan karo sababta arrimahaasi aniga ay ku dhaceen. anigu ma garan. anigu halkaan waxaan imid guriga senator cabdi qaybdiid oo muxuu ahaa sida la sheegay ay ciidamo soo galeen hubaysan halkaasoo ay guriga khasaaro weyn u geysteen oo aad iyo aad u ballaaran. waxaanan rabnaa saas halkaan u imid waxa weeye inaan ogaano yaa ka dambeeyey. waa ka xunnahay inay dhacdo arrintaani, arrin oo maaragtay la filahaye ma ahayn, laakiin waxaan qabnaa dadka geystay ama ciidanka sida tan ciddii soo amartay inay muxuu ahaa ujeeddo ka lahaayeen, oo xataa haddii muxuu ahaa ay wax jiraan si ka fiican sidaana loo wajihi karay. arrintaas waa la soo qabanayaa, waa ka daba tegaynaa, waana ogaanaynaa, waana ka xunnahay in arrintu sideedaba inay saas waxaanoo kale iyo wax la mida inay dhacaan. marka arrintaas waa saas inaan rabnaa inaad u ogaataan. waxaan filaynay ma ahan. dowladdoo dhan baa ka xun, madaxdoo dhan baa ka xun, qof kastoo soomaaliya ka xun. waa dhacdo foolxun wey. marka arrintaas waxaan rabnaa inaan meel saarno oo ciddii geysatay dembigaan ciqaabteeda ay hesho. intaasaan raba inaan idhaahdo. waana mahadsantahay. talay hore waxaa u jirtay in sidaanoo kale ay dhacday oo nin siyaasi ah la weeraray, la soo xiray, dibna loo sii daayey. maantana nin senatara la weeraray oo gurigiisii iyo dadkiisii loo soo dhacay. ciidamadii yimid halkan iyo dadkay ka amar qaataan in intuba lagu sheegay la soo baari doono, dib loo soo ogaan doono. arrintaas hore dhacdo hore ahayd, aniga ma goobjoog kama ahayn. midaan hadda dhacday waxaan ballan qaadayna ciddii ka dambaysay in la helo ciqaabteedana ay mutaan. waana mahadsantahay.